السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا channel كينا إن شاء الله maanta waxaan furaynaa masaasado cusub oo laba nooca labada cunug soo kala gaday kuwii hore insha Allah inaa tuuro waaye madawada 6 bilood ay gaareen ina masaasadaha hore aan 6 bilood isticmaalayay ina kuwa cusub soo gato marka kuwana maanta soo gadanay noocana hor furnay hadda noocan waxa la yiraahdaa kuwa marka 4 xabaa ku jirtay boxka naga tuur marka noocan waxa ku jirtay xabadan waa 9 lambar iyo xabadan kale iyadoo wali bacda kama furidin labadan saande iyo labadan yarka ayaga waa 5 lambar wixii kale wateen furkan asaga marka masaasada ku dhaqatid oo ku nadiifisid ay roogana waad kala bixin kartaa daarabtid waan isku xir karaa kaas iskaga xiran yahay isku dhig hadda ma aqaan wakaasagana waxa kale ku soo direen mid yarko ilmaha dhuuqaan oo 2 xaba ah laakiin kan ani ma isticmaalo markasto ka soo gato kambanigooda oo iska tuuraa ilmaha ma dhuuqaan ma jeclin iyo 2 fur oo extra ah dheeraad so kuwan furarka ku jira hadda already afartooda mid kasta ku jira laakiin haduu mid ka dhumo ama maxaa la dhahaayeen ilmaha kale ay ka haleeyaan kale xabad cusub meel ku taala xabadna waliba labadaas waay waa lambar 2 labadooduba mid kasta lambar bay leedahay insha Allah iyaga meel baa dhigaya kuwana hadii insha Allah haduu qof noo imaado u baahdo ana ma isticmaalno ayagana waa noocaas kana fiirina marka kuwan ayaga kale hore oo haystay oo noocan haystay kuwan tuuraayo kuwan so waa inta hadda meesha taalo kale xabadan oo 2 xaba iyo xabadan oo 2 xaba ah iyo brushkoodii ayaga 6 bilood camal hadda soo haystay marka waa time to go waqti la xoor lahaa wiilkan isla kuwana isticmaali jiray oo color kala blue iyo 3 color 3 xaba ah oo kala nooc ah ayagana sidoo kale waa la tuuraya waxaan ku bedeleynaa maanta kuwan marka kuwan horta meesha ka fogeynaa wax yar kuwan iyo brushkooda xaga noo dhig labadan waan furay haday soo furay kuwan marka waa 2 xabo waxa la dhahaa mama ala dhahaa ayaga marka kuwii hore way ka dugan yihiin kuwan dabadii ka duleelaan tusaale ahaan kala daada iyo kaso sande masaasada taas faragalka ka ah tasaba halkaas ka duleesha marka waxa loogu talagalay kale marka furku saan oo kale yahay masaasada caadi ahaan inay saas ahaato ana haday ta kala furay ana karkariyaa marka waxa sirmaashida ku jirtay bal masaasada bataas hadda wali ma furo bacdeed ku dhagan hadan ka faa'iidana way cusub tahay marka saan oo kale yihiin inta maanta hadda marka wada cusub yahay ina caadi ma ku karkariyaa mishiinka caadiga loogu talagalay masaasada lagu karkariyo laakiin hadda markaan isticmaalo kala dar maalin kasta mar iyo 2 mar kariyo microwave ku karin karaa marka soo u karinayo sidan waay waad furaysaa waxaan sheegay ta ka fur marka soo u furo furkiin soo bixinayna marka furkan ka saar dhigi kartaa daarabtid muujira cayrka waa soo dhixgelinay furkana waa kor saaraya sabab dhahay marka isku xiran soo jeedin xiranta wixii lagu guday ku jiraan biyaad ku shubanaysaa meelaha sageynay adiga la inta rabtid tartiib sana dhahay microwave ka gelinaya 3 daqiiqo 4 2 daqiiqo markay ku soo korkorto biyaha ay rabto ka shubaysaa xooga u xira madaba cusub yihiin isqabsanayaan
marka ana biyo iska ilaaliso marka furiso qolsaas ba iska furtid hada biyo ku soo karkarisay microwave ka aad u kulliyihiin so yeah hada marka daaro kuna karkarisatid oo ku qalalaan habeysatidna hada cunuga caana ku siisanaysaa marka noocan ilmaha yar ku fiican yahay laakiin wiilku way baxsanaa asaga masaasada badan uma baahna waa qof weyn maadaama aad cunto u cuno hada caana caadi ugu shubanaysaa wataan marka koro ma ka qaadayna marka caana ku shubatid ilmaha caana ku siisanaysaa marka noocan waaye mama ala dhaayagana tan waa sidoo kale labadoodu markasta oo saas baa loo karkarinayaa hadii aad haysatid fitaamishinka lagu karkarino ku karkarin kartaa hadaadan haysanina waa ka maarantaaba saas ku fududahay soo furkaas un hoos keenaysa khalaas marka insha Allah waqtiga karkar lahaa la gaari kulligood hadda waan furfuray kuwan meel baan iska dhigaa maadaama kuwan aan isticmaalaynin kuwan hadda ay wada cusub yihiin oo ayaga dhan furarkooda ay wataan furarkan hadda dib fur iga dhumay waxa soo kale man furan gelinaya iyo waxa soo gaday darmuusyada kii hore oo ka tuuray darmuuskaas maanta soo gaday kii hore waxa dhacay furkiisa wuxuu noqday maxaa la dhahaa uu milmaaya midowga ka soo daadanaya marka iska tuur madow sanad isticmaalay kana maanta ku soo bedelna caani baby-gana hadda lambar 2 noocan ku bedeleen isdaha lambar 2 kale awal hay jireen laakiin kuwana wax yarna ka raqiisan waa isla meesha inta badan ayaga si fiican u keenaan marka ayaga ka soo qaatay maanta dhawaad fiidiyahayga marka inta ku soo gabagabeyna insha Allah masaafadana waa iska soo dhaqaaya hal badan ay talaan laftigay waa kuwaas kulli hadda inaan furo soo habeeyo soo dhaqo soo karkariyo insha Allah ina isku celcelin ma haysaa kuwan labadan inta wiilkii ina afartan gabadha siimado iday ka yartaa squad lima aad u yarada ay ku fiican yihiin laakiin insha Allah waan soo danaa marka soo galay qorshe waxa labada ina wiilkiisa laakiin kuwan hadaaba la furi karo xitaa inuu furaa laga yaabaa asoo wuxuu leeyahay xaslay ama u kala bedesha kuwan iyada siisaa marka waxa kugu soo dhacay marka insha Allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh qofna insha Allah soo habeysana noo dhiman insha Allah channelka subscribe share video badan iyo soo gelin doona hadii Ilaahay idmo inta badan marmar waa ka mashquulaa maadaama hooyil iska yahay waa fahmi kartaa dana guriga ka guuraayo marka taxaano barashada xageeda wixii dhan ba wax isku noqdaan marka hadii video soo gali saa u leeyahay soo gal wax arka barbar anoo bil soo galininba marka insha Allah hadda kadib inaan soo jeesta isku teeya idinkana like saara subscribe comment insha Allah soo dhawaada mar kale